ورقن أول هروين سود حجرني ما هرق أنا هذا سدح قلين هرجيسة دلنيرة دو تشجيع عن الله أنا قلنا هرجيسة عن الله إنه دلنيرة أنا حنا هاي مدحوينه إننا وطا ما يركين إننا وطا نقول وين كيس هنا ولا است deegaanka waa deegaanka Soomaali oo dhan ay ku idashay aan qofna laga lahayn laga sheegan karin daawadayaal sida halka arkaysan kulankiis dhaxgalka ee dhalinyarada Soomaaliland iyo sidoo kale dowladda deegaanka Soomaalida ayaa halkan si rasmi ah uga bilaabmay waxa madashan goobjoogka isla markaasna dhalinyarada waqtiga badan gelisay kamida samafal Nasruddin Hiir Shacab ku soo dhawow samafal ee barnaamijkan maanta muxuu ka dhigan yahay si guud ku soo dhawaada aad baan ku salaamay walaalihi warbaahintaada iyo Soomaali oo dhanba kan isdhaxgal ma waa dad walaalaha dad isdhaxgal ma aha waa dad deegaankoodii mid waa dad dalkoodii jooga waa dad anagu aan marti u nahay haday noqoto ka qayb qaadasho hawlahana keligii hawlan qaatay ma aha haday dhalinyarada deegaanka noqoto oo ay halbuulo u ahaayeen Muscab iyo tiimkiisuba sidoo kale duqa magaalada waxa isaguna meesha aan ka maqnayn oo halbuulo ah oo Ilaahay ka soku aynan hawshan laanta ay dhacdeen madaxweynaha dalka danjirka dalka madaxweyne Mustafa Maxamed Umar aad baan ugu mahadcelinaynaa deegaankeenu walaaleel uu ka soo daalay waqtiyada uu soo maray dhibaatooyin fara badan uu soo maray maanta waxa weeye deegaankeenu waa deegaan Soomaaliyeed waa deegaan dalka iyo dadkaba waxa weeye cid walba qoomiyada kale ay ku nool yihiin dad muslimiin ay ku nool yihiin dad kristan ay ku nool yihiin sabab allaaliya sabab aan walaaladeena inala dhashay ee inala dhiiga ee inala dheecaanka aan u fogeynay ma jirto waa mid xaqiiqa wallahi inaan maalin nacbayn marka waxa weeye sabab alaali sabab loo dhaw wala soo dhaweynayna ma jirto war walaalayaal dalkiini ba joogtaan dadkiini ba joogtaan ku dalxiisa bilicda iyo quruxda bilicda iyo isbedelkii dabadii quruxda iyo deegaanka iyo waqtiga iyo juhdiga la galiyay iyo furfurnaanshaha deegaankeenu ka deegaankayga ka dhacay ku soo dhawaada nala arka waanu idin imanaynaa waad noo imanaysaan waxaan idin leeyahay magaalada la idin kama leh 1 milyan oo abaafa ku nool soo waxaad garteen ma oo jigjiga oo meel baaxad weyn leh oo Soomaali oo dhan qaaday idinkuna dadka noogu sii dhawaatiin dad ehelkayga jaarkayga walaaladayba tiin waanu idin jecelnahay shalay baan idin jeclayn maanta aan idin jecelnahay birna waan idin jeclaanayna soo dhawaada gacmo furan walaal ku soo dhawaada maanta waxaan wada joognaa dhalinyaradii TikTokerska jigjiga iyo kuwii Hargeysa aad iyo aad baa mahadsantiin halkan waxaan uga mahadcelinayaa madaxweynaha Mustafa Akjar sidoo kale maayirka caasimadda Shaafi iyo Nasruddin oo wada garanaysaan iyo dhalinyaradan oo la yimaanta waa isdhex galaysan warqan awal horowen soo dhex jirnay ma aha rag aan hadda isdhex galeen marka waxaan leeyahay dhalinyaradana waxaan leeyahay madaxweynihiina wata maayirkiina wata nin waliba ninkiisa ha noolaysto Soomaaliland garan horta salaamu calaykum dhalinyarada marka hore waxaan leeyahay ku bilaabay horta soo dhawaada innaga iyo idinka marka hore horta wax inaga dhaxeeyay oo khilada ma jirin ba xogaa khalad ka dhacay wuxuu ahaa isbahandaradaas oo ah annaga iyo dawladdeennada oo idinka iyo dawladdiina laftigeedu mararka qaar wax isku qaban kartaan war annagu waan soo dhaweynaynaa shalay dhalinyaradan bay ahayn kuweena nala joogay ee saaxiibadana qaarkood aniga Muscabaana xaafadana isla joognay qaarkood marka Hargeysa tagaan waan iyaga la joogay war soo dhawaada saaxiibayaal waxa la yiri wax walba ay khaldami karaan laakiin qaabka khaladka halku ka yimaaday ayaa laga yaabaa inuu marsamo qaab kale uu noqdo annaga idinka wax naga dhaxeey ma jiro saaxiibaynu nahay ehel baynu nahay jaar baynu nahay oo wadaag baynu nahay meel loo kala tagay ma jirto geeleniba wada daaqaya arigeeniba wada daaqaya hooyiyo waxaan isku nahay iyo in adeer deegaanka laftirkiisa annagu horta waxaan Soomaalida kale kaga duwanahay ilaa taxamar sheeganaysa la Soomaali weyn 38 qabiil baa horta deegaanka degan deegaanka waa deegaanka Soomaali oo dhan ay ku idashay aan qofna laga lahayn laga sheegan karin annaga laftirkanaga dhalinyarada u dhex jirta annaga qaar hadda nala socota hayb haday noqonayso qaar Hargeysa ka soo jeedaan qaar Muqdisho ka soo jeedaan qaar meel kale ka soo jeedaan midaasi maxay keentay waa midnimada RDDS annagu kaliya jigjiga kaliya ma aha waxaanu ka hadlaynaa si guud deegaanka Soomaaliland ka hadlaynaa waxa idin furan qabri dahar waxa idin furan wardheer waxa idin furan dhagax buur waxa idin furan jigjiga waxa idin diran fiiq ilaasi raasiyo maxaa la yiraahdaa city meel walba idin furan tahay ku soo dhawaada saaxiibayaal annaga idinkuna hal baynu nahay dhexdeena buu wax kale ka yimaado hawshan anaga ku xirnow lana wadaaga asxaabtaada faalladaadu waa muhiim Dagara Media waa saaxiibka dadweynaha